وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد علماء الصومالية شرفت لقيموها كالدول الشيخ بشير أحمد الصلاة بدمية العلماء الصومالية الشيخ نور بارود بجينكا هذا علماء الصومالية دي أفين كذا الشيخ محمد السومو وأصغنا أفينكا وراها جود علماء الصومالية حسنوا الجماعة بدميها مجمع علماء الإسلام في الصومالية الشيخ يوسف علي عينته iyo kasoo qaybgalayaasha dhammaantiin waxaan u salaamayaa markale assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu bayaankii ama warmutiyeedka meeshan aan ku saxiixnay ayaan rabnaa meesha ka aqriyo ku socota dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ujeedada warmutiyeed kala bixinta culimada Soomaaliyeed xarunta irshaad ee aragti isdhaafsiga waxay ka codsatay qaybaha kala duwan ee culimada Soomaaliyeed inay bayaan ka soo saaraan afkaaraha qaldan ee ah waxtagida diimeedka ka jira wadankeena waddanka Soomaaliya iyo mabaadi'da guud ee culimadu si wada jir ah u hirgelinayaan una difaacayaan waxayna culimadu soo saareen qodobadan soo socda ummadda Soomaaliyeed waa ummad muslima boqolkiiba boqol ahna sunni madhabkeeduna yahay shaafici laba in si buuxda loogu dhaqmo shareecada islaamka saddex in la ilaaliyo ujeedooyinka shanta ah ee waaweyn oo ay ku dhisan tahay shareecada islaamka sida diinta nafta maalka cadliga iyo sharafta afar in aan lagu faafin karin dalka Soomaaliya diin aan ahayn diinteena islaamka ee suuban in la ilaaliyo waxyaabaha mideeya ummadda Soomaaliyeed sida diinta dalka dhaqanka iyo nolosha in laga hortago afkaaraha qaldan ee wax duminaya sida xagjirnimada fikirka shiicada iyo gaalaysiinimada muslimiinta todoba in la waafajiyo dib u habeynta lagu sameynayo dastuurka qaranka Soomaaliyeed shareecada islaamka in culimada Soomaaliyeed laga qayb geliyo dhammaan wada tashiyada ay dawladdu la sameynayso ummadda Soomaaliyeed loogana hadlayo aayaha dalka heer qaran iyo heer gobolka in la ilaaliyo xuduudaha dalka iyo madaxbannaanida Soomaaliyeed in manhajka waxbarashada Soomaaliyeed dib u eegis lagu sameeyo si uu u noqdo mid ka turjumaya diinta iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed lana jaanqaadi kara xilliga la marayo 11 in dib u habeyn dhab ah lagu sameeyo dhammaan hay'adaha garsoorka lana waafajiyo shareecada islaamka dhammaan xukuumadda la gaarayo si cadaalad ah 12 in si buuxda loo taageero hanaanka dawladnimo ee dalka ka jira laguna raaco madaxda dalka amaradooda aan ka hor imanaynin shareecada islaamka 13 in si wada jir ah loogu gurmado meelaha ay ka dhacaan dhibaatooyinka sida dabeelaha abaaraha fatahaadaha colaadaha iyo wixii la 14 in goobaha la isku yimaado lagu ilaaliyo anshaxa iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed lagana fogeeyo oo dhaqanka xun waxa kamid ah goobaha ka wadeen hoteelada meelaha loo dalxiistago meelaha maganaysa 15 in la sameeyo dib u heshiisiin u dhaxayso qabaa'ilada Soomaaliyeed wixii khilaaf ah oo jirana lagu xaliyo wada hadal iyo isu tanaasul ugu dambeyn culimada Soomaaliyeed waxay ugu baaqayaan dhalinyarada la meelin habaabi in ay ka soo laabtaan kana toobad keenaan qaladaadkii ay galeen dawladuna ay ku soo dhaweyso gacmo furan mahadsanidin saxiixayaasha warmutiyeedka gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashir Ahmed Salaam afayeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Sow gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliya ee islaamka ee Soomaaliyeed Sheekh Yuusuf Ali Cinte isku dubiridka warmutiyeedkan waxa weeyaan xarunta irshaad ee aragti isdhaafsiga intaas kadib waxaan aad ugu mahadcelinaynaa anoo ku hadlaya afka xarunta irshaad culimada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ee ajiibay in ay bayaankan ay soo saaraan wuxuuna bayaankan soo maray marxalad fara badan oo ay kamid ahayd marxaladii koowaad horta beenaha la kulano culimada oo arrintaa u soo bandhigay way soo dhaweeyeen
marxaladii labaad waxay ahayd inay soo qoraan ay soo gudbiyaan aragtidooda oo qodobeysan oo qoran hadafkuna uu yahay in la helo wax kulmiya ama wax mushtarag ah oo guud oo ay culimadu wada difaacdaan ama wada difaacaan shacabka Soomaaliyeed loo sheego si markaas luqada lagula hadlayo bulshada Soomaaliyeed meel kasoo joogto ay u noqoto mid midaysan oo loo saxo fahamka khaldan ee markasta iman kara arrintaas runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa culimada qaybahooda kala duwan iyo sida waqtigooda ay ugu bixiyeen iyo sida ay u soo qoreen anaguna waxaa markasta aan ku dadaalaynaa in aan kaalinta culimada ay lahaayeen inaan dib soo celino kaalintii way lahaayeen hadda kahor way jirtay laakiin waxaan u baahannahay oo aan go-aan ku gaarnay oo aan habeen iyo maalin ba aan usoo jeednaa inaan kaalintoodii si buuxda ay usoo noqoto qaybaha kala duwan ee bulshada waayo culimada Soomaaliyeed la-aantood wax badan ma hirgelaya waxyaabaha fara badan oo hadda dalkeena ka jira ama caalamka ka jira waxyaabaha ugu muhiimsan ee la isku hayo waa afkaarta qaldan ee kala duwan ama in diin la adeegsado taa marka waxaa caddayn kara oo magaranaysaa sheegi kara culimada sheegi kara mar kasta dowladda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan oo hay'adaha waxa weeyaan waa dalka iyaga mas'uulka marka waxyaabaha la xiriira diinta islaamka waxyaabaha la xiriira shacabka iyo xiriirka ka dhexeeya madaxda mar kasta waxaa caddayn kara culimada caddayn kara wax badanna wuxuu u baahan yahay in si diin ahaan looga hadlo oo la hubiyo diin la hubiyo maxaa yeelay inna waxaan nahay shacab muslimiin nahay saan aan sheegnay marka haddaad dareento qiyaadada ama madaxda caalamka markaad dareento nin kastoo meel wax ka jeedinaya wuxuu soo qaataa hal ku dheg ama eray wuxuu soo qaataa diimeed ayuu soo qaataa marka saa darteed waa midda keenaysa marka in dagaaladan iyo siraaca iyo loolanka ka jira Soomaaliya in loo fiiriyo dhinaca badan laga fiiriyo culimadana kaalinteeda la siiyo oo doorkeeda la siiyo dadkana ay u caddeeyaan ujeedada ugu muhiimsan aan kale inaan wax weeyaan bayaankan jahawareerka in laga saaro dadka bulshada Soomaaliyeed jahawareerka in laga saaro ee culimadooda ku taxmaan waxaana meesha ku qoran madhabka Shaafici waa madhabkii xagga fiqhiga wax soo jireen oo ahaa wax cusub ma aha waxaan hadda ugu celinaa waxa weeyaan dadku inay fahmaan inay shacabka Soomaaliyeed madhab leeyihiin oo madhabka Shaaficiga waxa marjiciin ah kitaab sunna ayaa marjiciin oo aha laakiin fiqh baan ka hadlayno waxaana shakhsiyan ka hadlayno fiqh laga hadlayo fiqh Shaafici taana arrin cusub ma aha wadan kasta maanta wuxuu leeyahay madhab uu leeyahay ama hada Hanbali ama hada Maliki ama hada Hanafi sadarteed waxaan aad runtii ugu mahadcelinayaa mar kale yani basaylkan jira ee ay bisil yihiin ay aad u bisil yihiin aqoomeed iyo mid fikir oo culimadu ay u bisil yihiin way u wada hadleen oo haddana ma garanaysaa warmujeedan midaysan ay soo saareen oo waliba qaab u soo saareen oo aynan xataa aynan ku lahayn role iyo kaalin aynan ku lahayn ma garanaysaa dad rasmi ah ama dawladda rasmi aynan ku lahayn ee centerkan oo center Soomaaliyeed